الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الأحبة في الله الله تبارك وتعالى بني آدم كوحه أبو ري وأدونك الله كاني إلا امتحانه oo la kala saaro lagu imtixaano wanaaga iyo wax wanaagsan ee la siiyay lagu imtixaano sidoo kale xaaladda adag iyo duruufta adag ee uu marayo lagu imtixaano jirrada iyo xanuunka lagu imtixaano faqriga iyo baahida lagu imtixaano xoolaha iyo qinaha lagu imtixaano xoogga iyo awoodda lagu imtixaano dacfiga iyo tabardarrida lagu imtixaano xaaladihiisa dhammaanteed allah tabaaraka wa tacaala qur-aanka kariimka wuxuu inoogu sheegay in aan labada xaaladoodba ku imtixaananahay wanabluukum biاlshari wاlkhayri fitna wabalownaahum biاlxasanaati wاlsayi'aat haddii aad xaalad wanaagsan ku jirtana waad imtixaanantoo waa lagu fiirsanaya bal saad u dhaqanto xaaladdu hadday kaa liidatana waad imtixaanantoo waxaa la fiirinayaa bal saad u dhaqanto natiijada imtixaankaa ka soo baxa unbaana wax lagu qaybsanaya ninkii imtixaankaa ku dhacayna adduuniya aakharaba waa khasaaray ninkii imtixaankaa ku baasoo ku barmoosana adduuniya aakharaba waa liibaanay adduunkani marka saasaan ugu imtixaanannahay awaamirta rabbi sharcigiisa takaaliifta nicamka iyo muxuu ahaayey dhibaatooyinka intaba xaaladeennu waa xaalada imtixaan natiijada imtixaankaasna waxaa la qaybin doonaa iyo abaalgudkiisa adduunkana waxbaa la soo hormarin laakiin qaybtiisa rasmiga aakharay dambaysaa halkaasaa laysku doonsiin doonaa nin walba natiijadiisa imtixaanka iyo abaalgudkii ka dhashay intaan nool lahayse imtixaankaasaan dhex dabaalanayna haddaba suuro ka mida suurooyinka nabigeennu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh iyadoo aad u fara badan tahay qur-aanka kariimka inuu arrintaa ka hadlo oo ina dareensiiyo axaadiista nabigeena sal alla alay wasalam iyaduna aad uga hadashay ujeeddada muhimka ah si aan u fahanno oo aynaan u garamarin iyadoo nusuusta noocaasi aad u fara badan tahay ayaa haddana waxaynu soo qaadanaynaa xadiid cajab badan oo nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi inoo sheegay xadiidka bukhaari iyo muslim baa wariyey waxa uu rasuulku leeyahay sal alla alay wasalam 3 nin oo waxaa jiray ummaddii inaga horrayso reer bani israa'iil ahaa 3 nin aafay qabeen mid walba dhibaataa gooni u haysay musiibo gooniya baa haysatay 3 mid ka mida cudurka baraska la yidhaahduu qabay ee jidhka caddeeya midka labaadna timihii madaxa ka buubay oo madax cad iyo timo la'aan buu ahaa midka saddexaadna nin indhool ah oon indhalahayn oon waxba arkaynin buu ahaa 3 nin buu alla damcay tabaaraka wa tacaala oo doonay inuu imtixaano imtixaankoodu siduu u dhacay u fiirso malag baa ilaahay u soo diray tabaaraka wa tacaala malaggii wuxuu ugu yimid 3 nin suuro bini aadam buu ugu yimid nin caadi ah yuu iska soo dhigay ilaan allah tabaaraka wa tacaala malaa'igta wuxuu awood u siiyey haddii rabbigood u idmo tabaaraka wa tacaala inay suuro aadame ku imaan karaan oy ruuxa ugu imaan karaan suuro bini aadam buu ugu yimid wuxuu u tegey ninkii baraska qabay wuxuu ku yidhi wax aad hesho ama lagu siiyo maxaad ugu jeceshahay maanta wax lagu siiyo maxaad ugu jeceshahay markaasuu wuxuu yidhi waxaan ugu jeclahay midab quruxsan iyo jidh quruxsan iyo in ay dhaafo iga tago xanuunkan baraska ah
ee dadku igu qurunsadeen dadkii baa iliitay meeshaan imaada waa laga cararayaa waa la yasayaa mujtamacii baa layga takooray xanuunkan in ilaahay iga qaado midab quruxsan aan helo wax maanta kaasaan wax walba ugu jeclahay wuu masaxay oo gacantuu mariyey malagii waa bogsooday oo wixii oo dhan waa ka tegey jir quruxsan iyo midab quruxsan baa la siiyey intaa markii la isugu daray baa wuxuu ku yidhi xoolana maxaad ugu jeceshahay war wax sheego markaasuu yidhi geel baan ugu jeclahay waxaa la siiyey hal 10 sid ah bishii 9aad bishii 10aad ilma sida yani wax way dhalmadeedii baa dhow waa xilliga geelu ugu qaalisay ayaa la siiyey hal riman oo bisheedii 10aad ku jirta guddoon baa la yidhi intaa markuu u dhiibayna wuxuu ku yidhi allah ha kuu barakeeyo waa isaga tegey ninkii timuhu ka buubeenoo timala'aantaha buu u yimid wuxuu ku yidhi war wax lagu siiyo maxaad ugu jeceshay wuxuu yidhi waxaan ugu jeclahay in timihii la ii soo celiyo timo inaan yeesho cudurkan timala'aanta ahee dadku igu dhibsadeenna inuu ilaahay iga qaado asagana waa masaxay waxaa loo soo celiyey timihiisii timo quruxsan ayaa madaxa loo saaray kadibna wuxuu ku yidhi xoolo maxaad ugu jeceshay lo'daan ugu jeclahay neef lo ah oo isagana riman sac dhalaya ayaa la guddoonsiiyey oo la yidhi qabso waana loogu duceeyo waxaa la yidhi allah kuu barakeeyo waa isaga tegey indhoolkiibuu u yimid wuxuu yidhi maxaad ugu jeceshaa wax lagu siiyo wuxuu yidhi in ilaahay indhahayga ii soo celiyo oo wax kala arko dadka inaan arkaan rabaaye ilaahay araggayga inuu ii soo celiyaa wax walba maanta ugu jecla asagana waa masaxo gacantuu mariyey oo markiiba araggiisii baa ilaahay u soo celiyey markaasuu siduu rabay wax kala arkay wax u kala baxeen xoolo maxaad ugu jeceshahay baa la yidhi adhigaan ugu jeclahay waa neef adhi ah oo lamaan oo wata ilmihiisii wata ayaa isagana la guddoonsiiyey qabsaan la yidhi allah kuu barakeeyo waa isaga tegey imtixaanka qaybtiisii hore saasuu ku dhammaadayoo cudurradiina waa layska saaroo caafimaad iyo qurux baa loo baxay xoolana waa layska dharjiyey kadibna ninkii neefka geelee 10 sidkaa la siiyey hasha riman la siiyey hashii waa ka dhashaday way tarantay ilaa geeliisii uu gaadhay tog dhan iyo dhul dhan geel daaqahaya ayaa hashii ka dhashay kii neefka lo'da lahaana sici waa u dhalay waa tarmay lo' fara badanoo tog dhan buuxinaysu isaguna yeeshay kii indhoolkaana sidoo kale ridiisii waa ka dhashaday ridii neefka wadatay isagana waa u tarantay markaasaa waxay noqotay tog dhan inay buuxisay saddexdoodiioo sidaa u laban yaa oo nin walba tamashlaynay oo caafimaadka ku tamatucay oo xoolo ka dheragsan yahay ayaa imtixaanka qaybtiisii labaad ku bilaabatay isla malagii laftiisii baa u yimid suuradii buu ugu yimid qaabkiina waa ugu yimid oo suuradii markii hore ee isagu u imaanayay uu lahaaba waa suuroobi kartaa mise nin walba suuradiisoo kale ugu yimid kan oo indhahala suuradiisoo kale kan muxuu ahay timuhu ka buubeen suuradiisoo kale ayadana waa suuroobi kartaa suuradiisii iyo hay-addiisii buu ugu yimid markaasuu wuxuu ku yidhi kii waxaa lagu soo hormaray baraska qabay wuxuu ku yidhi nin miskiinaan ahay socotana waan ahay jidkii iyo asbaabtii iyo nooligii baa iga go'ay aan jidka ku mari lahaa ee waxaan ku weydiisanayaa oon kugu weydiisanayaa allaha jidhkan quruxsan ku siiyey xoolahanna ku siiyey allaha magaciisa waxaan kugu weydiisanayaa hal neef oo geel ah oon safarta u kaalmaysto meeshaan u socday ku gaadho sahayda iga bixi war hal neef oo geela
geel dhan oo tog buuxinayo muxuu ka dhan yahay markaasuu wuxuu ku yidhi adeer xuquuqdu waa badan tahay geelan xuquuq badan baa lagu leeyahay anigiiyo geeloon hana fiirinine laakiin geelan xuquuq badan baa saaran raalli ahow kaciskata socodkaaga wado meeshaad wax ka helaysa ka hel markaasuu wuxuu ku yidhi warniyo inaan ku garanayaabad moodaaye inaan garanayaad u eg tahay miyaadan baras qabi jirin oodan faqiir ahaan jirin oo ilaahay xoolo ku siinin baraskiina kaa daaweynin markaasuu yidhi waxaa sheegaysa xoog ma jiray dhaaf xoolahan aad arkaysa buu yidhi aniga iska dhaafee ka awow rag waaweyn baa kala dhaxlay buui rag waaweyn yaa odayaal oo sharaf leh baa xoolahan soo kala gaadho oy ka soo jeedaane warkaad akhriyaysa bannaanka la aad buu ku yidhi markaasuu wuxuu ku yidhi haddaad run sheegayso warka aad sheegayso run yahay sidaad ahaan jirtay allaha kaa dhigo maxay tahay macnaheedu xoolahana allaha kaa qaado baraskiina allah kugu soo celiyey waa isaga tegey ninkii waxaa loo yimid timuhu ka buubeene aqrac ahaa wuxuu ku yidhi warniyo socotaana sahaydina waa iga gooday waxaan ku weydiisanayaa allaha tabaaraka wa tacaala timaha quruxsan ku siiyey xoolahanna ku siiyey waxaan ku weydiisanayaa hal neefoo lo ah oo aan safarta u kaalmaystoon jidka ku maroon sahay ka dhigto intaa keliya isii sidooda kor isaguna ku jawaabo wuxuu yidhi adeer xuquuqdu waa badantay raalli ahow war miyaana ku garanaynin ood hebel ahayn war ninkii nooca ahaan jiray soomati inaan ku garanayaad moodaaye maya isma garanayn xageed ugu aragtay ya war xoolahan odayaal iyo ab baan ka soo gaadhay raalli ahow haddaad saad sheegayso ay run tahay ilaahay sidaad ahaan jirtay ha kaa dhigo isagana waa ka tegey indhoolkii baa loo yimid oo adhi badan u daaqahay wuxuu ku yidhi niyahow waxaan ahay nin miskiin ah socotona waan ah sahaydii baa iga gooday socod ma jiro maanta allaha ii kaalmeeya kadibna adiga oo i gacan qabta mooye meel gaadhid iima sugnaan meel lama gaadhi karo ee allaha tabaaraka wa tacaala araggaagii indhahaaga kuu soo celiyey dartii waxaan kugu weydiisanayaa iyo magaciisa waxaan kugu weydiisanayaa hal neefoo adhi ah oo aan sahay ka dhigtoon safarta u kaalmaysto hal neefoo adhi ah ninkii indhoolkaa wuxuu yidhi niyo horta indhool baan ahaan jira waxba ma arki jirin ilaahay baa ii soo celiyey araggaygii faqiirna waan ahaan jiray ilaahay baa xoolahan aad arkaysa i siiyey sidaas daraaddeed xoolaha wax alla waxaad rabto ka kaxaysuu yidhi hal neefa soomaada codsanin war hal neefa iska dhaafay intaad dhex gasho intaad doonto kaxayso intaad doontana ka tag ilaahay baan ku dhaartee maanta inaanan kugu dhibaynin xoolo aad ilaahay dartii u kaxaysatood meeshaa ka kaxaysay kuguna dhibi maayo kuna weydiin maayo khiyaar baad leedahay kaxayso imtixaankii waa dhammaaday soo maaha natiijadiisii iyo shahaadadii hoo marka iyo abaalgudkii hoo wuxuu ku yidhi war saddexdiinnaba waa laydin imtixaanay horta xoolahaaga hayso buu yidhi yaa xaaladdu waa caddaatay xoolo kaama rabe horta xoolahaaga hayso laakiin saddexdu ahaydeena waa laydin imtixaanay labadaadii saaxiib ilaahay baa u cadhooday adigana ilaahay baa raalli kaa noqday ya labadaadii saaxiib ilaahay baa u cadhooday maxaa yeelay ilaahay nicmadiisii way inkireen cudurkii laga saaray way dafireen xoolihii la siiyey way dafireen way ka shukrin waayeen kaabir can kaabir bay u saareen allihii siiyey intay garab mariyeen baa waxay yidhahdeen abiya awoobaan ka dhaxallay xuquuqdu waa fara badantay iska tag bay jawaabtoodii noqotay cadho ilaahay baa ku habsatay tabaaraka wa tacaala amaa adiga allah raalli kaa noqday nicmadii baad qirtay wixii lagu galay baad ogolaatay waad xustay waad ka abaalgudday oo waad bixisay ilaahay baa raalli kaa noqday tabaaraka wa tacaala qisada cajabta badan ee nabigeenu bixiyey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh duruus badan baa ku jirta duruusta ku jirtaayo waxaa ka mida kow horta nolosha waa imtixaanannahay faqiirku waa imtixaanan yahay haniguna waa imtixaanan yahay
كجرة وامتحانية كعافمات قبوا وامتحانية جاهلك وامتحانية عالمك وامتحانية مضحض وامتحانا انتهي رعيدنا وامتحانا انتهي رق وامتحانية دمرك وامتحانية امتحان بيلولشني عيار معها أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا عيار لينوما أبور امتحان كاسا كجرنا امتحان كاسي هذه كباستنا نتيجة دي سوى إلهي الرذيهيس هذه امتحان ككب عدنا وإلهي عدديس نين كان إلهي الرالب وكان نقضي الله الامتحان كيف كباس لولا إلهي ما هو عروضي محيا الامتحان كيف يكون دعين سدى أدونك الله هو عروضي بي آخرنا النار إلهي كوك ليان تبارك وتعالى وحكى لهم كقابلنا إنه قصة عجبت بضا بني آدم كأي الدبي عديس يا بني آدم كأي الدبي عديس وحاد دبي عدوه إن أصم حصوصا وحو صامري يوحو أهانجري لكن أكو حساب طبق ما أنت وحويه سيدو كلا أصم فيرين محال إيمان كرود نقون كرتا ورما أنت واد لننت وواد عافمات قبتا انت أصوكو حساب طميه أيضا سوح كل السياح شلي وحو هووها المامي بري وحي نقول دونتنا وهل من سيهي حالة داسو وعنوشي صلى عيار يا وعندك قرال لو يمانين كاوحي كهر موقع أيوكو حساب تما لكن وحو أهانشري وها المامية ما أنت وحا آذو بدن ولغا يابا إن بدن إذن كمدا إناد أركتين أما أيبت شراب آذو بدنيهن ضد فقراءها ومساكينها وباهنا ودبنا وإلهي تبارك وتعالى خزائنتي سأفري وحولي شيء وشلي ننكي شلي آن أهين ننكي دبي عد معانا ما يا ننكي مساجد اللي أركي تشري ما ننكي مساكين تلن ولا ما ننكي دتك سود وين تشري ما وفارح كلوا فارحي أن قال ما هو فارح كلا والفارح وحالك يا محاسدا وقلي وحقاقا حولها باللقوي يا وحادو قاتا الله تبارك وتعالى سيدا صدح ذا من امتحاني با أديقنا وحالقو صوتيري كرا أديقو اللضل مسكين با لقو صوتيري كرا حق الربي با لقو صوتيري قاد بالاليه يا ويديسو هاي كويمت واكويت ورني والله أنا مسكين بانا كعنده عيسى ركع ليش كذا يا قصات سنش خلاص وابا انتي با يكون سقطه النتيجه دي بوابا لا غاري اديغنا waxaad u haysataa hawshu is gaadid qadarkaaga intaad garato ilaahay sunankiisana aad fahamto aafada ilaahay ka saaray dhibka uu ka saarayna xusuusnow midda maanta aad ku sugan tahayna ka shukri tasoo socotana u diyaar garow oo ku talagal intaasi haday ka lunto maalku ku wareeriyo caafimaadku ku wareeriyo cilmigu ku wareeriyo kursiga aad maanta ku fadhido ku wareeriso war shalay miskiin jidadka taagtaagan baabahay xagga rabbi baa tabaaraka wa tacaala ka timid oo markaasaad shaga ku fadhiisatay wasiir baad noqotay mise madaxweyne يا ورنيكي عبد العزيز هاي شلي أن نقلنا ميلها انتاك مقايدها كشاهد تري سواديك ما هاي ما حاجات واركت يا حاجات واركتي ما وكا ليش هاسو كدعي بني آدم وكا ما حد دروستا الله ينصينا يا دروستا وحا الله ينصينا يا إن أوحان أهانشد لنا خصوصا إلهي النعم كيسانا كالشكرين نعمك الرب تبارك وتعالى هداد أقرته وتكشكرده ووحي مضنطه يجيد كذا مريسه الله تبارك وتعالى وكود دينيا وانا كود سيادينيا وانا كاقرها للنقونيا لأن النبي قال سيدة الله صلوات ربي والسلام عليه انتاد عبتان عبته أما عنته إناد إلهي أمه العلي سبو الرالي كاقر نقونيا كبب يا أباد كببت الحمد لله لقمد عنتا بعد أفكار قليسون لقضي الحمد لله إلهي الرالب كان نقضي تبارك وتعالى مركز ربك كو أقوصته نعمدنا تشيد كذي آدمريس الرب تبارك وتعالى آخر الرالب كايه يدون كذا نعمدنا وكود دينيا ونكو سيادينيا لئن شكرتم لأزيدنكم هذا الشكر ذا والذين سيادينيا هذا إسلوينا تصواه ودس قروينه
ood ninkii shalay aad isbedesho ood midab kale iyo dhaqan kale la soo baxdo soo maaha ilaahay tabaaraka wa tacaala waa kuu cadhoonayaa adduun iyo aakharaba xoolahana hayn maysido way ku dhaafayaan imisaa xoolo lahaan jiray oo maanta meelaha taagtaagan imisaa madax ahayd oo maanta meelaha taagtaagan war ilaahay tabaaraka wa tacaala wa tilka alayaamu nudaawiluha bayna annaasi mid ka qaado mid u dhiib weeye xaaladdu rabbina sidaasuu kownkiisa ku maamulaayo maalinkaad ladan tahay isgaro maalinkaad caafimaad qabto isgaro maalinkaad awood leedahay isgaro rabbigaa ka shukri nicmadiisa tabaaraka wa tacaala addoommada rabbina waad ku imtixaanan tahay u naxariiso u tur oo dabeecad wanaagsan iyo dhaqan wanaagsan iyo gacan furan kula dhaqan sallu wa sallimu ala khatami al-anbiya'i wal mursalin allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warda allahumma 'an as-sahabati wat tabi'in wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم